in maaragtay Felix iyo gabdhihii laba gabdhood oo la socday meesha ay ku garaaceen gabdho nabadii nolol taageersan oo baangad bahalka midiyaha kan cuntada lagu cuno oo miiska la saaro oo maaragtay qofku markuu cashada dalbado kale ama qadada dalbado kale soo raaciyo midiyaha yararka ah oo laakiin ilkaha aan lahayn iyo xaq kula wacan wanaagsan daawadayaal halkani waa Horseed Funny Media muuqaalka like inoo saar sidoo kale channelka subscribe saaro mahadsanid daawade haddii aanu ku bilowno muuqaalka warbixintan sida hordhacad ka arkayseen waxayna soo gaaray warar sheegaya in fanaanadii Felix Cabdi ay markaasi jir dileen qaar kamid ah taageerayaasha nabad iyo nolol inkastoo warar kala gadisan ay soo baxayaan haddana waxaa la sheegayaa in fanaanada si xun loo garaacay oo la dilay fanaaniinta waayaha cusub ayaa maalmihii u dambeeyay waxa ay qabsadeen baraha bulshada iyagoo ka dhaliyay dood aad u la yaab badan kadib markii ay soo qaadeen hees ay ku aflagaadeynayaan xukuumadda ama dowladda haatan ka jirta Soomaaliya ee nabad iyo nolol waxaana heeskaasi uu halkudhigiisu ah nabar iyo naxdin dad badan ayaana aad uga carooday iyadoo dhanka YouTube-ka ee laga soo galiyay dad badan ay dislike saareen taasoo ka dhigan in heeska aan laga helin heeska oo noqotay heeskii ugu dislike badnaa ayaa warbaahinta Soomaalidu ay si weyn u falanqeynayeen waliba wareysiyo kala gadisan ay la yeelanayeen fanaaniintii heeska soo qaaday waayaha cusub oo kamid ah fanaaniinta Soomaaliyeed oo dalka Holland magangeliyo ku jooga waliba magangeliyo amni markaasi ku jooga ayaa haatan waxaa la sheegay dabaq ay deganaayeen in markaasi lagu burbursaday oo kadibna ay dowladda Holland ay siisay guri halkaas oo ay gurigii markii ay dageen ay ka sii dhaqaajiyeen oo gabadha Felix habeenkii xalay ah iyadoo oo maqaaxi ka casheynaysa ay weerareen habla kale oo Soomaaliyeed kuwaas oo aad u dhalishanaa heeskii markaa nabar iyo naxdin ay gabadhu soo qaaday waxyaabaha kale ee naxdinta waxaa kamid ah in fanaanada Felix Cabdi la sheegay in ay uur leedahay waliba uurkaasi oo aan la shaacin inta bilood uu yahay hadaba daawada ku soo dhawaaw shakhsi xogtaasi og ayaan idin soo gudbin doonaa si fiican oo soco qaabka waayaha cusub ay ku tageen Holland iyo sidoo kale dhacdo sida ay u dhacday Horseed Funny Media subscribe saaro muuqaalka like inoo saasiina share gareey mahadsanid وأوجدين أول كينيا وهي كده جنايين حافظ لغو إلاليو ودولة كينيا أي سكرجيز جريين إن شباب يعير سنيسو ودولة الصومالية مارت أي مركز جوبتي دمارة دولة أي قادي ويسي لكن دولة كينيا أي دمارة دولة قادي حافظ دي أي كل نولايين وحي كفا إيديستين وحي هلين إن بندق فناد يوروب كجريبي هلين arintii markay ku yimaadeen waxay u bandhigeen dawladda Holland in maaragtay nabadgelyadooda iyo amaankooda ay halis ku jirto waxay la xiriireen dawladda Kenya dawladda Holland waxay raadeen dadka ka waran wax la xaqiijiyay oo Kenya u xaqiijisay intaas oo sano inay gacanta ku haysay oo waardiyeysay Kenya dhexdeeda lagu xabadiyay oo shabaab ay ku dileen cadaymihii iyo sawiradii shiina khiyaar xataa oo ku jiray aanu si fiican bas u naqaanay ay lixliyo rag aan isnaqaano oo isku arki jirnay waxay Kenya gaar ahaan waxa way habeenkii oo kale waa isla socon jirnay waa sarkay jirnay arintii kadib waxa dhacday bandhig fareedkii ay Holland ku qabanayeen in maaragtay laga aqbalay in maaragtay dawladda Holland ay siisay magangeliyo maadaama nafsadooda ay halis ku jirtay waxa la keenay Holland bay yimaadeen dawladdu way aqbashay sharci baa la siiyay halkaas ay deganayeen haddaba shiina khiyaar iyo Felix iyo dhalinyarada kale waayaha cusub waxa ma ahayn in isla markii guriga la siiyay ma ahayn isla markii in la dajiyay maartay si dadka qaxootiga marka la qaabilo in guriyo qaxooti oo maartay nool iyo gurigiisa iyo qof walba gurigiisa la dajiyo ma aha waxay ku jireen guri kaam oo ilaa hadda Felix Cabdi iyo Shiina Khiyaar iyo Lixle iyo waxay ku jiraan guri kaam bay ku jiraan guri kaam macnaha dabaq ka kooban 5 biyaano ilaa 6 biyaano dabaqaas waxa wada degan dad qaxooti ah marka dadka qaxootiga ah ee dabaqaas ku wada nool dhamaantood waxa way wada degan waana qaxooti halkaas ayagoo ku jira bay heestan soo saareen dabaqa dadkii deganaa oo dhan waxa waa la culoobay waxay dawladda u tageen waxay yiraahdeen waan la raadsanayaa heestii shalay ma doorad markay soo gashay dawladdu wuxuu sheegay in la raadsanayo dabaqana uu si naftooda ammaan iyo safe uu soo ahayn waa laga raday meel kale la geeyay oo qaxooti deganeen oo guriya oo waxa ayaga khaas u ah iyo dad dhalada oo dalka u dhashay baa la geeyay meeshii way ku noolaayeen caawa Felix iyo gabdho la socday waxay yimaadeen maqaaxidii ay timi Felix iyo gabdhihii la socday waxaaba joogayba
dad nabadii nolol taageersan dadkii markii la baaray sidii wax u dhaceen baan idin sheegayaa maqaaxidii waxaa dhacday markii laga casheeyay habeenka caawa hadeertaan way wax arku dhacay arrinkan waa hadda adiga 30 minute meelahaas kadib 30 minute hadda la isoo sheegay marka maqaaxidii waxaa ka dhacday in maaragtay Felis iyo gabdhihii laba gabdhood oo la socday meesha ay ku garaaceen gabdho nabadii nolol taageersan oo baangad bahalka midiyaha kan cuntada lagu cuno oo miiska la saaro oo maaragtay qofku markuu cashada dalbado kale ama qadada dalbado kale soo raaciyo midiyaha yararka ah oo laakiin ilkaha aan lahayn iyo xaq leh iyo fargeetooyin ba waxay qoftii Felis'eeda caawa kaliyaha iyo meel walba wax ay maaragtay kaga dureen Felis waxa la ii sheegay inay uur lahayd waa ka dareemi kartaan heesta markay qaadayso in maaragtay ay tahay qof xaamila ah anigu intay tahay ma sheegi karo warkeeda laakiin waa qof xaamila ah gabadhaas waxay arrinkeedu xaalkeedu waxay caawa halkaas u marayaa waa la garaacay nabadii nolol waxa weeye gabadhaas beerkay ka tumay caawa waxaa loo soo adeegsaday gabdho rag baa marka caawa Facebook soo galaan ama bari waxay dhihi doonaan gabadhaas waxa dilay waa dawladda Soomaaliya waxa la dhihi doonaa waa farmaajo ninka dilay waxaa la oran doonaa rag baa dilay gabadhaas waxa garaacay oo beerka ka tumay caawa oo ku istaagay oo fargeetooyinka iyo waxa weeye midiyahan yararka waxa weeye ku xagxagay oo caloosha iyo meel kasta waxa weeye kala dhacay waxay ahaayeen gabdho markii la ii sheegay murursada iyo mareexaan u badan bay ahaayeen caawa waxa weeye Felis Cabdi xaalkeeda halkaas oo maraya waxa la ii sheegay gabadhaas